sidee ninkan ku muuqda uga jawaabay su'aal laga weydiiyay diinta uu haystay islaamka u eg dhaleeco haddana u eg xujo oo lagu weydiiyay haddana goob fagaaro ay joogaan boqolaal kala afaf iyo diimo iyo qoomiyada ah iyo gudaha Itoobiya weyn sideese isla su'aasha jawaabteedii uu ugu bedelo uga faa'iideystay dacwad ahaan oo dadka aan muslimkaan ku gaarsiinayo wanaagga islaamka ku soo dhawaada hadalka saameynta weyn ku yeeshay sida weyn u qabsaday dhagaha iyo warbaahinta Itoobiyaanka maalmihii ugu dambeeyay ee ka soo yeedhay fadhiyahanka reer Itoobiya Soda Fighter waxaan hay Axmed Awga halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal fadlan like dheh muuqa dhiirigelin ayay noo tahay share u dheh saaxiibada subscribe-tana ku hubso channelkeena YouTube aad baad u mahadsan tahay haddii aad ka daawanayso muuqaalkan Facebook ama TikTok-na hoos ka soo daawo muuqaalka oo dhammaystiran booqo YouTube-keena aad baad u mahadsan tahay እስልምና ፍጹም ነው ሰዎች ግን ፍጹም አይደለም Islam is perfect the believer is not perfect you should know that I don't care ስለምታወራው ነገር ማለት ይሄ ነው intaynan u gelin su'aasha la weydiiyay Sodo iyo jawaabta uu ka bixiyay iyo sida ay ku soo ragashay ama barnaamijkaasi uu ku yimidba iyo saameynta ay yeelatayba kolka hore aan ku bara Soda Fighter waa fadhiyahan reer Itoobiya ah laga yaabay in badan inaad baraha bulshada ku aragtay isagoo oo isku madadaalinaya jimicsi feed isagoo dad la feertamaya isagoo marar fara badan iyo isagoo qaylinaya waa fadhiyahan reer Itoobiya ah waa fadhiyahan muslim ah diinahan bishan aynu ku jirno gaar ahaan maalmahan ugu dambeeyay waxa Itoobiya ka socda tartan loo qabtay fadhiyahanada tartankan habeen walba waxa ku kulmaya isku hor imanaya laba fadhiyahan tartanka waxa lagu magac daray Aruga Fight haddaba waxa ku jira sharciga ciyaarta feerka ah Itoobiya ka socota inta aan la gelin garoonka ee labada fadhiyahan ay isla gelin garoonka inay hadal isku weydaarsadaan su'aalo isku weydaarsadaan oo ku sheekaystaan daliilo isugu sheegaan taageerayaashoodan u kala saabeeyaan oo taageerayaashu horto saas oo kalena taageerayaashu ay su'aalo ku weydiiyaan oo uga jawaabaan waa inta aan la gelin garoonka haddaba Sodo ciyaartan waxay ku kulmayeen fadhiyahan kale oo la yiraahdo Johnny markii hoolka la soo galay ee la soo fadhiistay sheekadii ay isweydaarsanayeen kaftan daayad su'aalo ay isweydaarsanayeen labada fadhiyahan mikrofoonka sheekadii ay isweydaarsanayeen iyo su'aalaha ay isweydaarsanayeen ilaha waxaas daayadaha baa waxa Johnny waxa ka soo baxday su'aal u dhigneed sidan Sodo waxaad noo sheegtaa oo leedahay oo ku celcelisaa islaamku diinteeda islaamku waa diin adag waa diin dhammaystiran waa diin qurux badan ayaad noo sheegtaa waad ku faantantaa haddana adigoo ku faantamaya haddana waxaad xayeysiisaa khamriga waxaad xayeysiisaa waxyaabo diintaada ayna ogolayn su'aashaas weydiiyey waxa marka la yaab noqday jawaabta uu bixiyay inta haddaba aynaan qeexin jawaabta uu Sodo ka bixiyay su'aashan adiga muuqaalka daawanaya muslim baa tahay Soomaali baa tahay okay su'aashaas in badan baad Soomaalida la weydiiyaa gaabis baa ku jira cibaadadii gaabis baa ku jira islaam baa sheeganaysan haddana waa istilaysaan laakiin in badan ma aragno jawaab sax ah Soomaali ka bixinaya way qajiraan dadkeena markii su'aasha noocaas ah weydiiyay way ka yaxyaan macnaha adigu su'aashaas jawaab nuucee ah ayaad ka bixin lahayd bal ila wadaag faalada hoose ku qor jawaabtaada waayahay aanu nimaadno jawaabta uu ka bixiyay Sodo mikrofoonku qaatay wuxuu yiri waan jawaabayaa islaamku diinteeda islaamku waa diin dhammaystiran waa diin ebiyan waa diin aan ku jirin wax nusqaan ah diin qurux badan waa sharci adag waa sharci dhammaystiran laakiin anigu bini aadan baan ahay khaladaad baan leeyahay gafaf baa iga dhacaya leexleexadka igu badanaya anigu bashar baan ahay islaamku waa diin dhammaystiran laakiin bini aadamku khaladaad bay leeyihiin anigu haddaba khaladaadka iga dhacaya waxaan leeyahay oo aan aaminsanahay rabbi ilaah aan ula laabto u tooba keeno u sheegto uga tooba keeno khaladka iga dhacaya bini aadam baan nahay khalad baan naga dhacaya khaladka bini aadamka dhacaya annagu muslimiin ahaan iyo diinta islaamkan haysto iimaanka aan aaminsanahayba waxaan leenahay
rabbi aanu u tooba keenno oo nu xaggiisa u laabanno oo noo dembi dhaafaya aan ognahay inuu noo dembi dhaafayo noo naxariisanayo wuxuu marka ku sii celceliyo ku sii adkeeyay hadalka islaamku waa diin dhammaystiran waa diin qurux badan waa sharci adag laakiin basharku bini aadamku waa lexleexad badan yahay waa nusqaan badan yahay waa gaf badan yahay khaladad baa naga dhacaya waxaan leenahay rabbi aan ku noqonno oon xaggiisa u laabanno na cafiyaya na saamaxaya waxa weeyaan islaamku laakiin diin dhammaystiran በቀላሉ ማለት ነው የሴዶ ሙሉ ፐርሶናልና ካራክተር ምን ያህል ፌክ እንደሆነ ያሳያችሁ። በሃይማኖት የጠንካራ ነኝ ይላል፣ ግን የመጠጥ ማስታወቂያ ሲሰራ ታዩታላችሁ። እናቴ ትቆጣኛለች ይላል፣ ግን በወንድ ላይ ሻፍጃለሁ ብሎ ፖስት ሲያደርግ አትቆጣም? እንዴት አይነት አስተዳደግ ቢኖር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርክ ወንድ ልጅ አሻፍሮኛል ብለህ ፖስት ብታደርገው? አጠገብ ደህና ሰው የለም። ማናጀሮች ምንድን ነው የሚሰሩት? እንደዚህ አይነት አዋራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖረው ወንድሜ። እሱን ደግሞ የወንድ ልጅ ጥጉን ያሳያለሁ። እሺ አው ይስቆይ መልሳለን እኮ እኛም መልሳለን። እኔ ፐርፌክት አይደለሁም፣ ሃይማኖቴ ግን ፐርፌክት ነው። ከእኔ ከምሰራው ወንጀል በላይ ሊምረኝ የሚችለው ማነው? አላህ ነው። ወንጀል ሰርቻለሁ ማለት ነው። አላህ ግን ይምረኛል። እኔ ጠጥቼ አላህን ከለመንኩት ይምረኛል ማለት ነው። የሚምር ጌታ ነው ያለኝ። ስለዚህ ለእሱ አታስብ። ገብቶሃል አይደል? እስልምና ፍጹም ነው፣ ሰዎቹ ግን ፍጹም አይደለም። ኢስላም ኢዝ ፐርፌክት፣ ቢሊቨር ኢዝ ናት ፐርፌክት። ይሹና አይ ዶንት ኬር ስለምታወራው ነገር ማለት ይሄ ነው ማለት jawaabta uu bixiyay Socdo waxa aad ugu riyaaqay dhammaan intii maqashay gaal iyo muslimba si gaar ah dadka aan haysan diinta islaamka ee luqadan fahmayay ee macnaha fahmayay si weyn ay gudaha Itoobiya hadalkaas uu miisaan iyo macno uga yeeshay si weyn ayaa loogu riyaaqay wuxuu ku helay Socdo wuxuu ku helay dhiirigelin fara badan buu ku helay wuxuu ku helay haddii aad booqatid baraha bulshada TikTok iyo meelahaas dad booqatid Socdo hadalkiisaasi waa hadalka ugu saameynta badan maalmihii la soo dhaafay maaragtay gudaha Itoobiya warbaahinta Itoobiya jawaabta uu bixiyay Socdo markaad eegto Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yidhi al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan maanta aan in dhamaystiray maalinkii xajatu wadaac uu nabiga sallallahu alayhi wasallam tigay soo aayad soo degtay ma hadalkaas wuxuu noqday hadal miisaankiisii culayskiisa leh adiga muuqaalka daawanaya sideed u aragtaa jawaabta uu su'aashan ka bixiyay Socdo waxaan ahay Axmed Awga halkanina waa JTN fadlan like dheh muuqa share u saaxiibada subscribe tana ka iloobin YouTube-keena aad baad u mahadsantahay